السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada barnaamijkeenii maxay kula tahay. dad fara badan ayaa caadad ama dhaqan uga dhigtay inay noloshooda ay soo bandhigaan. waxaad arkaysaa xaashadooda facebooka ama statuskooda whatsappka iyagoo wax kasta noloshooda ku saabsan soo dhigaya. hadday tahay ilmo yar u dhashay, hadday tahay dhoof ay dhoofayaan, hadday tahay xaflad ay sameeyeen, hadday tahay guri ay iibsadeen, waxa gurigooda yaala, waxa caruurtooda ay samaynayaan. qaarna youtube-ka waxaad arkaysaa channelkooda iyagoo soo dhigaya dumarkooda, caruurtooda, alaabta guriga u taala, cuntada maanta la kariyey, dhoofkooda, safarkooda. dadkaasuna markasta waxay ilowsan yihiin dhibaatadii u geysan karto noloshoodan loo soo bandhigayo dadka kale, iyadoo barakada noloshooda laga qaadayo oo isha bini'aadamkuna ay ku badanayso. waxaad arkaysaa noloshooda iyadoo dhibaatadu ay ku badan tahay, hadafkoodan aanay gaadhayn, oo waxyaabo fara badan ay ku riyoonayaan ama mashaariic fara badan ay gacanta ku hayaan dadka u soo bandhigayaan iyadoo ka burburaysa. ibnulqayim aljawsiy wuxuu yidhi wax aad u cajiiba. wuxuu yidhi uktum can innaasi dahabaka wa dahaabaka wa madhabak, oo macnaheedu ay tahay dadka ka qari dahabkaad haysatid iyo meeshaad tegaysid iyo diintaada. dahabka wuxuu uga jeedaa nimcad kastoo ilaahay uu ku siiyey dadka ha uga sheekaynin ama qari. sababta waxa weeyaan qof kastoo nimcad haysta waa qof la xaasidaayo. ilaahay qur'aanka wuxuu yidhi yacquub markuu inankiisii yuusuf uga sheekeeyey riyaduu ku riyooday, ayuu ka baqay inuu walaalihii ku xaasidaan xataa riyada yar uu ku riyoonayo. markaasaa wuxuu ku idhi bismi illaahi araxmaani araxiim yaa bunay laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiiduu laka kayda. sadaqa allaahu alcadiim. xataa nimcadda cibaadadda haddaad tahay qof habeenka kaca oo qiyaamuleyl tukada ama isniintii khamiista sooma, dadka ha u sheegin, xataa cibaadadda lagugu xaasidaya. dadka ka qari waxa xisaabtaada ku jira bankiga, mushaharkaad qaadatid, xaaladaada dhaqaalaha, wax kasta oo ku saabsan dahabkaaga ama waxaad haysatid ama nimcaddaad haysatid, dadka ka qari. ibnulqayim aljawsiy markuu idhina wadahaabak, yacni meeshaad tegaysid, wuxuu ku leeyahay waxa aad wadid ama mashruucaad samaynaysid ama guur aad doonaysid inaad guursatid ama guri aad iibsanaysid ama business cusubaad hal abuuraysid, waxaasoo dhan dadka ka qari ilaa inta arrinkuu dhammaado aad samaysid. markuu leeyahayna madhabuk ama diintaada, wuxuu uga jeedaa ha ka sheekaynin inta fara badan naftaada, oo qari waxaad ku fakaraysid iyo waxaad aaminsan tahay iyo waxyaabahaad ku qanacsan tahay. dadka ha uga sheekaynin waxaad jeceshahay ama waxaad necab tahay, liannu sabab buu noqonaysaa dadku inay helaan dacfigaaga ama waxaad daciifka ku tahay oo laga yaaba inay taas dhinaca ay kaa soo weeraraan. ha u sheegin dadka wax kastoo noloshaada ku saabsan. waynaad noqotid mar kasta qof aana la fahmayn oo aana la garanayn ujeedadiisa ama wuxuu wado. cumar bn alkhataab wuxuu idhi nadimtu cala alkalaami maraat wamaa nadimtu cala asamti mara. in badan ban ka qoomameeya hadal aan hadlay, laakiin mar qura kamaan qoomamayn inaan aamusay. idinkana maxay idinla tahay? ma aaminsan tihiin inaan dadka inaan ka qarino dahabkan haysanno iyo meeshaan tegayno iyo diinteenna? waa mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.